waxaana wanaagsan daawada meel walba aad joogtid mar kale ku soo dhawo macluumaad kooban oo ku saabsan guud ahaan waxyaabaha ka soo kordhay dunida gaar ahaan dagaalka galay maalintii 12aad ee ka soconaya marinka Gaza. qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa macluumaadyo badan oo ay kamid yihiin hadalka dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga ee dagaalka ku aadan Cabdilfataax al-Siisi iyo Mareykanka oo ogolaaday in gargaar la gaarsiiyo marinka Gaza. maxkamadda ICC oo furtay galka lagu baarayo dhibaatadii ugu dambeysay Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza. xisbullah xubnaha laga dilay hanjabaada ay jeedinayso ruushka waxyaabaha uu diyaarka u leeyahay iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku eegi doonaa oo ay kamid yihiin wararkii ugu dambeeyay. soo dhawaada mar kale kamid noqon saaxiibadeena aad baad u mahadsantahay. waxaan isku dayaa inaan kuu soo koobo qodobo aad u tiro badan inta aan ka gaarnana aan ku darno falanqeyn kooban insha Allah. ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool ahna ciyaaryahan ka soo jeeda dalka Masar Mohamed Salah ayaa xalay iska soo duubay muuqaal konton iyo 1 ilbiriqsi soconaya oo taageero ugu muujinaya shacabka Falastiiniyiinta. si gaar ahaaneed wuxuu kaga hadlay xasuuqa lagu hayo dadka shacabka ah ee ku nool marinka Gaza, waxaana uu dalbaday 12 maalin kadib in ugu yaraan garab istaag loo muujiyo walaalaha Falastiiniyiinta ah ee dhibaatada xoogan la kulmaya tan iyo 7 bishii Oktoobar markii dagaal xoogan Xamaas ay ku qaadeen deegaano badan oo dhaca dhanka koonfureed ee Israa'iil. diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa weli duqeymo wada, waxaana maanta ay duqeymo ku burburiyeen 3 dabaq oo aad loo yaqaano oo ku yaala koonfurta magaalada Gaza. daarahan ayaa waxa la yiraahdaa Al-Zahra, dhamaantood waxa la sheegay in ay ahaayeen dhismayaal la deganaa, iyadoo mas'uuliyiinta Gazana ay sheegeen tani inay tahay masiibo kale oo hor leh oo ka dhacday marinka Gaza. duqeynta saaka ayaa waxa la sheegay inay tahay mid aan kala joogsi lahayn, waxaana lagu garaacay dhowr dhisme ilaa iyo 30 ruux ayaa ilaa iminka la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen. tiro kale way ku dhaawacmeen iyadoo kooxaha gurmadka degdeg ay sameynayaan dadaal aad u tiro badan. sidoo kale waxa lagu waramayaa xarun iskuul oo gacanta ay ku haysay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta oo UNRWA la yiraahdo in gantaal uu ku dhacay 12 maalin kadibna waxaa soconaysa in la bartilmaameedsado goobaha dadka rayidka ay degan yihiin. xarunta ama kaamka loo yaqaano Magazi ayaa gantaalka uu ku dhacay, ilaa iminka lama sheegin tirada rasmiga ah, laakiin goobta waxay ahayd iskuul inta badan ay deegaansadaan dad ka soo cararay guryahooda. tirada dhimashada ayaa aad u sii kordhaysa saacadii la soo dhaafay. sidoo kale tan iyo xalay dhaawacyo badan ayaa ka dhashay duqeymo Israa'iiliyiinta ay ku harqinayaan magaalooyin dhowr oo ka tirsan marinka Gaza. ra'iisul wasaaraha dowladda Ingiriiska Rishi Sunak ayaa maanta waxa uu tagay magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil. wuxuu sheegay inuu garab istaag u muujinayo Israa'iiliyiinta. waa socdaal la doonayo inuu ku tago wadamo badan oo bariga dhexe ah, iyadoo Israa'iil la og yahay in taageero dhanka sirdoonka ah iyo sahankaba ay siiso sirdoonka Israa'iil. maraakiib dagaal iyo diyaarado ayaana kaga sugan dhanka gobolka. ruushka wuxuu sheegay inay diyaariyeen 27 tan oo cunto ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo marinka Gaza. dhammaan cuntadaas waxaa la sheegay in la marsiin doono dhinaca iyo marinka Rafax oo dalka Masar ah, waxaana sidaas sheegtay wasaaradda gurmadka degdega ah ee dowladda Ruushka. dhinaca kalena ruushka waxa uu ka digayaa in dagaalka ka socda marinka Gaza iyo duqeymaha halkaasi lagu harqinayo inay sababi karayaan dagaal guud ahaan gobolka ka holca. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay in tacadiyada tirada badan ee ka dhacaya marinka Gaza ay horseedi karayaan gobolka oo idil inuu isla holco, dagaalkaasna uu aad u fido. ruushka ayaa waxaa lagu waramayaa inuu xiriir la sameeyo mas'uuliin ka tirsan dowladaha Iiraan iyo Turkiga oo isku wanaagsanaayeen sanadihii la soo dhaafay ayna ka wada hadleen xalka dagaalka. sidoo kale madaxweynaha dowladda Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu sheegay in uu la xiriiray madaxweynaha dowladda Masar Cabdilfataax al-Siisi ayna ka wada hadleen ugu yaraan sidii xasilooni gobolka loogu soo dabaali lahaa. boqorka Jordan iyo Cabdilfataax al-Siisina waa labada meel ee indhaha caalamka ay ku sii jeedaan marka la doonayo in xal loo helo dagaalka soconaya, maadaama ay ku yaalaan xadka dhulka Falastiiniyiinta. sidoo kalena xiriir diblomaasiyadeed uu kala dhaxeeyo Israa'iil. madaxweynaha dowladda Shiinaha Xi Jinping ayaa u sheegay madaxweynaha dowladda Masar in xukuumadda Beijing ay rajeynayso in guud ahaan gobolka bariga dhexe xaaladiisa ay ka wanaagsanaato sida hadda ay tahay. tirada dhimashada ee dadka shacabka ee Falastiiniyiinta ayaa gaaraysa in ka badan 3500, sidoo kalena dhaawacu intaa waa uu ka badan yahay. dhinaca kale xiriirka Premier League ee dalka Ingiriiska ayaa goordhow qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen toddobaadka soo socda ciyaaraha ka dhacay guud ahaan dalka Ingiriiska in laga ilaalin doono calamada Falastiin iyo Israa'iil, oo waxay taagan yihiin siyaasadda iyo ciyaaraha la isku madaraya. laakiin markii Ukraine dagaalada adag ay ka dhacayeen xitaa heer waxay gaareen ay shaashadaha ay ku soo qoraan calanka Ukraine halka laga arkayo daqiiqadaha ciyaarta ay socoto.
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ingiriiska ayaa isagana la filayaa inuu booqdo dalalka turkiga, masar iyo qatar oo uu doonayo inuu kala hadlay in dagaalka uusan sii baahin. xisbullah waxay ku dhawaaqeen 2 ka mid ah dagaalyahanadooda inay ku shiihideen duqeymo lagu garaacay deegaano ay ku sugnaayeen oo dhanka xuduudda Lubnaan ah. sidaas oo kalena waxay sheegeen inay maanta ka awood badan yihiin ama ay ka xoog badan yihiin sidii ay ahaa jireen mar hore. marar badanna waxay ku hanjabeen dagaalka inay ku soo biiri doonaan. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka wuxuu iska casilay dhammaan shaqadii uu hayay kadib markii uu dulqaadan waayay sida maamulka madaxweyne Joe Biden uu u maareeyay colaadaha Israa'iil iyo Gaza. waxa kale uu ku dhawaaqay inay taageeri kareenin gargaar dheeraad ah oo Mareykanka uu siiyo Israa'iil. waxaana uu sheegay in tani ay tahay ficil aana wanaagsaneyn oo aan ka fiirsasho lahayn oo ku saleysan wax magaradnimo sidoo hadalka u dhigay sarkaalkan. sarkaalka ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Charles Powell ayaa lagu magacaabaa. wuxuu ahaa agaasimaha arrimaha bulshada iyo Congress-ka ee xafiiska arrimaha siyaasadda iyo militariga ee wasaaradda arrimaha dibadda. waxaana inta badan sida la sheegay uu gacanta ku hayaa wareejinta dhinaca hubka. arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyada oo shalay banaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen magaalada Washington ee dalka Mareykanka ilaa Ingiriiska iyo wadamo badan oo reer galbeedana dadka banaanbaxa ka dhigaya waa dadka aanan muslimka ahayn oo ka soo horjeeda dhibaatada lagu hayo dadka shacabka ah. maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ICC waxay ku dhawaaqday inay fureen baaritaan ku aadan xaaladihii ugu dambeeyay ee la xiriira dagaalka Israa'iil iyo duqeymaha dadka rayidka lagu bartilmaameysanayo ee marinka Gaza. xafiiska ICC ee xeer ilaalinta wuxuu falanqeyn karayaa dhammaan xogta ay ka helaan ila kasta oo la xiriira dambiyada, yacni dambiyada dagaalka ee ka dhan ah bini'aadamka, xasuuqa iyo weerarada oo hoos imaanaya wax ay awoodaan oo ay wax ka qaban karaan. sidaa daraaddeed baaritaana ayaa la bilaabayaa. si gaar ahaaneed waxaa la doonayaa in diiradda lagu saaro baaritaanka gantaalkii lagu garaacay cisbitaalka Al Ahli ee ku yaala magaalada Gaza oo dad badan ay ku dhinteen. wakaaladda wararka ee Reuters waxay baahisay macluumaadka ku saabsan in godadada ay Xamaas ay ka qoteen marinka Gaza in ay yihiin waxyaabaha ugu weyn ee keenay dib u dhaca howlgalkii dhanka dhulka Israa'iil ee doonaysa inay marinka Gaza ku gasho. waxaa kaloo warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters lagu yiri Israa'iil marnaba kuma guuleysan karto inay soo gabagabayso Xamaas iyada oo adeegsanaysa taangiyo iyo hubka awoodda leh. qabiiro militari oo gobolka bariga dhexe si weyn u yaqaan arrimaha militariga ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in guutada lagu magacaabo Ciisadiin Al-Qaasam ay sameeyeen dadaal kasta oo ay kaga hortagi karayaan taangiyada Israa'iil. wadooyin badanna ay dhigeen miinooyin taas oo cabsi weyn ku abuuraysa ciidamada Israa'iil. dhinaca kale falanqeeya lagu magacaabo Sinpel oo ah qabiir dhanka militariga falanqeeya una dhashay Ingiriiska ayaa warbaahinta Sky News waxa uu sheegay in howlgal dhanka dhulka ah oo ay qaadaan ciidamada Israa'iil kuna qaadaan marinka Gaza ay qatar weyn ay ku noqon doonto guud ahaan ciidamada Israa'iiliyiinta. waana baqdinta ugu weyn ee la qabo ee ah in weli ciidamada Israa'iil aysan ku dhiiran karin inay howlgal dhanka dhulka ay ku galaan marinka Gaza. madaxa golaha siyaasadda ee dalka Yemen Mahdi Al-Mashaad ayaa waxa uu yiri dambi kasta oo ay galaan gumeystaha Israa'iiliyiinta ayna ka geystaan Falastiin wuxuu u gogol xaarayaa in kumanaan kale ay ku geeriyoodaan guud ahaan gobolka. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden wuxuu ku dhawaaqay inuu la hadlay Cabdifataax Al-Siisi madaxweynaha dowladda Masar ayna isku raaceen in la furo marinka Rafah markii ugu horeysana gargaar halkaas uu ka gudbo maalinta biri oo Jimco ah sida qorshaha uu yahay. kadib markii ay wada hadleen Mareykanka, Masar iyo sidoo kale Israa'iil. madaxweynaha Turkiga waxa uu ku dhawaaqay muddo 3 maalin oo baroodiiq ah oo lagu xusayo dadkii ku dhintay weerarkii cisbitaalka. sidaas oo kale Masar iyo dalal kale ayaa go'aanka oo kala qaatay. Cabdifataax Al-Siisi dhankiisa isaga oo ay garab taagan yahay Olaf Scholz ninka Jarmalka ugu sareeya ayaa wuxuu ugu baaqay shacabka Masar in malaayiin jeer ay ka dibad baxaan oo ay ka dhiidhiyaan fikradda ah in shacabka marinka Gaza laga barakiciyo gacanka Siinay. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan wuxuu xaqiijiyay in Sacuudiga uu arko in la beegsado dadka rayidka ee ku nool marinka Gaza dambi aad u foolxun iyo weerar arxan darro ah. waxaanu carabka uu ku adkeeyay sida ay lagama maarmaan u tahay in laga shaqeeyo sidii dadka loo ilaalin lahaa. taliyaha ciidamada lugta ee Israa'iil Major General Ravi Milo waxa uu qirtay inay ku guuldareysteen inay ilaashadaan ammaankooda dhinaca koonfureed bilowgii dagaalka. waxaa arrintan ku soo beegmaysa iyadoo taliyaha qaybta sirdoonka militariga ee ammaan la yiraahdo uu daabacay warqad uu u diray qaybaha kala duwan ee askarta taas oo ku qiranaya fashilka keenay in Xamaas awoodeeda ay la soo baxday iyagana ay ka digi waayeen amni daradan. sawirkan waxaa hadal haya guud ahaan warbaahinta Carabta waana mid soo koobaya labada nin beenta isku raaceen iyo
sida ay saraakiisha iyo warbaahintii israa'iiliyiinta ay u qirteen duqayntii cisbitaalka al ahli. ugu dambeyntii xamaas waxay bogaadisay bayaankii ugu dambeeyey ee kasoo baxay ururka iskaashiga islaamka, waxaana ay ku baaqeen in arrintaasi ficil ahaan loo tarjumo. safaaradda ingiriiska ee magaalada bayruud waxay muwaadiniinteeda ka dalbatay inay isaga baxaan guud ahaan dalka lubnaan. wararkaas ayaa waqti xadirkan ugu waaweyn. waxyaabaha kasoo kordha guud ahaan caalamka barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah.